Saliidan waxa waaye timahaaga waxaa ku haynaysaa 3 saac ilaa 4 saac. Hadda habeenkii waa marsan kartaa markaa seexanaysid timaha ku masaajee kadibna subaxii iska dhaqaysaa. Soo saliidan saliid culus waaye inaad timahaaga ka dhaqdaa fiican si aad u heshid result qurux badan iyo waxtarkeeda. bismillaah assalaamu calaykum waa idin salaam asxaabta meel walba joogtiin kusoo dhawaada channelkeena Bushra Cooking and Healthy. I hope inaa wada caafimaad qabtiin asxaabta caafimaad idin rajeyna meel walba joogtiin. Maanta waxaa idin wadaa alaab aad u fiican oo timaha kuu korinayso oo timaha kuu dheereynayso, timaha siibanayo, timaha jajabayo oo cilad kastoo tinta ka hayso kaa caawinayso, timaha tiinka ah tiig kaaga dhigayso, timaha maxaa khaleelkana kuu qoynayso. alaab aad u fiican waaye oo simple ah oo aad helaysid. marka saliidan saa u sameynayna iyo waxyaalaha u baahanahay aan idila sheer gareyna asxaabta soo dhawaada. marka saliidan waxay ka kooban tahay koob waxaa ku jiro meeshan sanjabiil ku jiro aan soo jarjaray saas 4 gabal oo sanjabiil ku jiro. meeshan waxaa ku jira xabad sawda qof kasta uu yaqaana. meeshan waxaa ku jirta xulbad qof kasta uu yaqaana wuu helayaa. meeshan waxaa ku haysanaa amla waaye. amla waxa waaye geed hindi waaye, waxaa la Indian gooseberries amla la dhahaa. amla qof kasta Soomaali wuu garanayaa. saliid amla jirto isticmaashin obviously. so kan amla waaye, amla miraheeda waaye. dukaamada xalaalka Asianka laga helaa meel kasta joogtid. hadda amla haysanin qofkii Soomaaliya jooga camal wuu ka maarmi karaa. okay meesha maxaa ku haysanaa dhalo eber maxaa u baahanahay inaan ku shubno saliida. meeshana maxaa ku haysanaa saliida maanta isticmaalayo saliid aad u culus waaye. waxaa la dhahaa linseed saliida flaxseed ka waaye. saliida aad u fiican tahay timaha maasha Allah lagama sheekeyn karo. online-ka ka dalbanaysa saliida online-ka laga helaa. okay meeshana maxaa igu jira saliid aan custom u diyaariyey oo aan ani iibinayo waaye. saliidahayga oo productigayga waaye. marka maadaama saliidan ay culus tahay aan ku darsana saliid kale iima taalo. adi saliida hadda isticmaalaysid waxaa ku darsanaysaa olive oil ama saliid qumba ku daraysaa kaligeed strong waaye. marka ama saliid almond oil. marka waxaa sameynaynaa saa iskugu dardareynaa idin tusaa insha Allah. maxaa u baahan tahay dhalo qaleel ah oo nadiif ah. dhaladeeda oo ujeedin dry waaye nadiif waaye. maxaan ku shubaynaa sanjabiilka ku ridaynaa. afar xab sanjabiila ku ridaysa ujeedin. maxaa ku shubaynaa laba qaado oo bahashi ah xabad sawda miraheeda laba qaada ku shubaysaa. iyo laba qaado xulbadi waaye kana laba qaada ku shubaynaa xulbada. timahaaga hadday tiin yihiin tiig timo badan oo volume leh oo culeys ah oo kaala arag qurux shining dhalaalay uu kuu noqonayaa. marka tan wax laga cabirayo male. amlada haddaa haysanina waa ka maarantaa. waxaa ku shubayaa full hand gacanteeda buuxda ku shubaya saa ujeedin. waa iskula shubay saa ujeedin alaabtii dhan meeshaas ku jirtaa. haddana maxaa rabaa inaan ku shubo saliida. haddana maxaa ku shubaynaa saliida waxaa ku shubayaa linseedka saa ujeedin cold pressed waaye saliida oo culeys waaye. marka waxaa ku shubaya haafaa ka isticmaalaya.
waxaa ku shubay bakeeri haafkiis camal waaye intaas. haddana maxaa ku shubanaya saliidan kalaa ku shubaya insha allah. saliidan linseedka markuu haaf yahay bakeeri haafkiis, saliidana waxaa ka isticmaalaysaa bakeeri buuxo cause maxaa saliidan heavy waaye, culeys waaye saa idin sheegay. kadibna maxaa u baahanahay daboolkeeda inaan saarno. saliidda daboolkiis waa saarnay. kadibna maxaana loogu baahan yahay shakin inaa ruxdid. saliid saas inay isku dhex gashaan rabaa, asas u ruxdid. mar kasta saliidan waxaa waaye maalin kasta inaad saan u ruxdid oo aad dhigtid. maxay kaloo u baahan tahay saliidan saas markaa u samaysatid, maxaa u baahanahay shay madow u baahan tahay, socks madow, maro madow, good madow waxaa haysatid. so ani hadda maxaa haystaa soksi, black socks. saliidii oo gelinaysaa, si socsigana gelinaysaa saliidda, dabooleysaa. saliidda maxaa waaye mugdi inay ahaato, covered inay ahaato oo meel la dhigo waaye. 5 days 7 days aa meel dhigaysaa. 3-4 days xataa waa isticmaali kartaa. kadibna waa isticmaaleysaa. timaha go-ayaan way ka istaajinaysaa. mar kale asxaabta, amla haddaa heli karin ha isku dhibin. labadan shaqo fiicana qabanayaan. saa u ogtihiin channelkayga hore wuu ugu jiraa. labadan shay maasha allah. sanjabiishana timaha aada ugu fiican tahay, lagama sheekeyn karo faa'iidooyinkeeda. saliidaha isticmaalaysiina waa idin sheegay, saliid qumbe, almond oil, olive oil, coconut. saliidda jecesha isticmaalaysaa oo markaas ku dhow ma isdhibaysid, wax ma raadinaysid. saliidda haddaa heli karin dhib ma lahan. olive oil iyo qumbe iyo custard oil isku daraysaa. 3 saliidaa ku darsanaysaa. timahaaga adaa arkaysid isbedel ku imaado. so intaasa idil sheer galinaya. I hope inaad ka heli doontiin. aada u mahadsantihiin asxaabta supportka ay siinaysiin. so insha allah see you the next video. assalaamu calaykum. Bye.